soddon sano ka hor oo ay taariikhdu ay ku beegneeday 26 Sebteembar sanadii 1983 dunida waxa ay ka badbaaday dagaal la isku adeegsan rabay hubka nuclear-ka. Galinkii hore ee maalintaasi waxaa ku dhawaaqay seeriga digniinaha hubka kaasi oo sheegayay in Mareykanku uu Ruushku gantaallo uu ku soo riday ayna ku wajahan yihiin gudaha Ruushka. Xogta kombiyuutarada laga helay ayaa sheegaya in dhowr gantaal Ruushka lagu soo riday. Sharciga ciidanka Ruushka waxa uu dhigayay in gantaal nuclear ah ee la soo riday gantaal kale oo nuclear ah kaliya lagaga jawaabo. Waa markan oo kali ah xilli uu qofku u baahan yahay in maskaxdiisa iyo dareenkiisaba si aad ah uu uga shaqaysiiyo, ayuu yiri wiilkii uu dhalay ganshaala dhexe Stanley Bertov oo ahaa ninkii 1983 dagaalka nuclear-ka dunidan ka badbaadiyay. Xukuumaddii Dmitry Petrov aabihii wuxuu ka joogay halkii uu mudnaa in xilliga ay ku habboonayd. Wuxuu sheegay in aabihii gaashaanla dhexe uu ka mid ahaa ciidamada cirka Midowgii Sofiyeed waxaana ka soo shaqeeyay xerada Serbakov 15 oo ogaatay digniintii ugu horeysay ee gantaalada ridada dheer oo ka dhanka ah Mareykanka. Habeennimadii Sebteembar 26 sanadii 1983 Petrov waxa uu bedelay saaxiibkii isaga oo shaqada xilli habeen ah soo galay. Haddaba seeriga muujinayay in Mareykanku gantaal uu soo riday ayaa dhawaaqay. Isaga iyo saaxiibkiina waxay hubiyeen dhawaaqa seeriga ee baxayay in uu ahaa mid sax ah iyo in uu ahaa mid cillad farsamo ku yimid. Waxayna labadooduba ay isla qaateen gantaalka uu raadaarku soo qabtay in ay dhanka dayax-gacmeedka kala socdaan, balse uma suuro gelin in gantaalka dayax-gacmeedka ay ku arkaan. Haddaba maxay ugu guulaysan waayeen in ay arkaan gantaalka? Xilligaasi waxaa adkayd in meel fog laga arko gantaalka maxaa yeelay qoraxdu waa ay sii dhacaysay. Waxaa kale oo jiray qadka terminatorka ah ee habeen iyo maalin u dhaxeeya marka laga reebo in dayax-gacmeedka laftiisa uu qadkaasi u jiray. Petrov waxa uu haystay wax ka yar hal saac si uu u go'aamiyo in gantaal nuclear ah la soo riday iyo in kaleeto. Xilligaana wuxuu ahaa waqti uu xiriirka u dhaxeeya Mareykanka iyo Midowgii Sofiyeed oo aad u sii xumaanayay. Khilaafka waxa uu ku lug lahaa waxa loo yaqaan Euro missiles, wuxuuna khilaafka soo bilowday intii u dhaxaysay sanadihii 1970 waxaana sanadii 1983 uu gaaray halkii ugu sareysay. Xilligaasi waxa uu ahaa mar ay Midowgii Sofiyeedka ay cusboonaysiinayeen gantaaladooda ridada dhexe iyada oo gantaalo cusubna ay ku bedeleen kuwii horeeto. Tallaabadaasi Sofiyeedka ay qaaday ayaa dhalisay in ay cabasho badan kaga timaado wadamada reer galbeedka. Mareykanka oo cabashada wadamada reer galbeedka ah ka jawaabayay wax uu qorsheeyay in uu laba gantaal oo khatar ah uu u diro galbeedka Yurub. Gantaalahaasi oo kale ah gantaalada lagu magacaabo Bershin 2 iyo sidoo kaleeto gantaalka ridada dheer ee loo adeegsado qaaradaha. Sanadii 1983 ayay ahayd markii gantaaladan Yurub ay soo gaareen. Xaaladda noocaas ay kacsanayd markii ay jireen go'aan culus oo la qaato ayaa keeni karto suuragalnimada in dagaal nuclear la isku adeegsado dunida uu ka dhaco. Seeriga ayaa dhowr jeer dhawaaqayay si uu u muujiyo in gantaal la kaleeto la soo riday. Nidaamka looga hortago gantaalaha waa mid si aad ah loogu kalsoon yahay. Xilligaasi ay Ruushku haysteen. Petrov waxaa loo baahnaa inuu u sheego taliyaha ka sarreeya oo uu ogaa in haddii uu caddeeyo in Mareykanku uu gantaal soo riday in Midowga Sofiyeedku ay iyaguna kaga jawaabi doonaan hubka nuclear-ka. Shaqadiisana waxay ahayd in uu go'aan ka gaaro horena loogu sii tababaray. Go'aankiisii dunida badbaadiyay. Aabbahay waxa uu la kulmay xaalad adag sababtoo ah in la rido hal gantaal ma noqonayso fal dagaal, balse waxaa ka dhalan karo weeraro isdaba joog ah oo dunidu soo food saara. Ma uusan rumaysanayn in dagaal dhici doono sababtoo ah ma jirin cid guulaysanaysa. Markaa ayuu taleefanka qabtay oo u sheegay in nidaamka ka hortagga gantaalaha uu xog been ah uu bixinayo. Taasi waxay ahayd gaf weyn oo ka dhan ah awaamirtii uu sargaal ku dhaqmi lahaa. Waxa ugu muhiimsan ay ahayd in uu sameeyo in uu fariinta u gudbiyo sargaalka ka sarreeya, laakiin go'aanka badbaadiyay adduunka ayuu qaatay oo hubka nuclear-ka la isku adeegsan lahaa haddii uunan qaadan. Ma jirin shuruuc ku saabsan waqtigana loo oggolaaday in aan ka fikirno ka hor inta aanan loo sheegin shaqo joojin.
laakiin waxaynu ogeynay in dib u dhigista labaad ay qaadatay waqti muhiim ah in hoggaanka militariga iyo siyaasadda ee midowga Sofiyeetka loo baahnaa in lagu wargeliyo iyadoo go'aanka ka hor inta aanan la qaadan ayuu yiri waxa kaliya ah ee ahayday in aan sameeyo waxay ahayday in aan helo taleefan si toos ah ugu qabto qadka taliyayaasha laakiin ma dhaqaaqi karin waxaan dareemayay in aan fadhiyo meel dab lagu shiday oo kaleeto ayuu hadalkiisa sii raaciyay Petrov isagoo Petrov intaa ku daray waxaan haystay dhammaan xog kasta si aan u aqoonsado in ay jirto weerar kaleeto iyo in kale haddii aan warbixintayda u diri lahaa kii iga sarreeyay cid diidi lahayd ma jirto ayuu yiri in dagaal kaleeto dunida uu ka dhaco inkastoo oo nooca digniinta ay u muuqatay mid cad haddana Mr. Petrov waxa uu badbaadiyay shakhsiyadda dunida oo dhan marka laga reebo xirfadlayaasha IT-ga ee isaga la midka ahaa ee midowgii Sofiyeed waxay lahaayeen khubaro kaleeto oo sidoo kaleeto baarayay awoodda gantaalada Mareykanka koox ka mid ah shaqaalaha raadaarka dayaxa gacmeedka ayaa sheegay in aysan arag wax gantaal ah Petrov oo shaqada ka fadhiistay isagoo gaanshaalla dhexe ah ka hor dhimashadiisii ayaa ka mid ahaa saraakiishii qaatay tababarka sare ee ka soo shaqeeyay mid ka mid ah cutubyada digniinta hore ee ciidamadii Sofiyeetka tijaabooyin la sameeyay ayaa muujinaya in dayax gacmeedka uu ku weeraray fallaaraha cadceedda ee ka soo laabanayay daruuraha sanadkii 1984 Petrov shaqadii waa uu ka fadhiistay waxa uuna u guuray Faysano oo ahayd magaalo yar oo ku taala Moscow 15 sano kadib 1998 ayuuna warkiisii soo shacbaxay arrinkan kamaanu oo hadlin ma jeclayn inuu xasuusto haba yaraatee waayo waxa uu ku jahwareeray xaaladda xilligaasi jirtay kadib markii uu soo baxay warka Petrov waxa booqday warbaahinta waxaanu bilaabay inuu helo warqadaha dadka daafaha dunida ku nool ay u soo dirayaan xataa haddii ciwaankiisa uu ahaa mid aan la garanaynin mararka qaarkood haddana ma jirin ciwaan boosto oo nambarka iyo sidoo kaleeto taleefanka ee ninkaasi loogu soo hagaajin jiray Karli Shameshar oo u dhashay dalka Jarmalka ayaa booqday Petrov sanadii 1998 wuxuuna ku yiri markii aan la kulmay wuxuu ugu yiri soo gal kadibna waan la fadhiistay miiska jikada waxaan rabay in aan barto iyadoo aan doonayay in aan uga mahad celiyo saaxiibtinimadoodii waxayna socotay ku dhawaad 20 sano Petrov waxa uu ahaa mid caalami ah oo loo aqoonsan yahay oo la abaalmariyay wax uuna ku faani jiray go'aankiisii wanaagsanaa sababtoo ah wax uu ka fikrayay nuska saac ee saldhigaasi uu ku sugnaa xilliga go'aanka uu qaadanayay oo waxa uu rabay inuu noqdo go'aan uu qaadanayo mid sax ah Petrov waxa ugu dambeyn u geeriyooday sanadii 2017 ninkan ayaana noqday shakhsiga dunida ka badbaadiyay in ay mar kale ay gasho halaaga dagaalka oo la og yahay dhibka uu geysan karo iyadoo sidoo kaleeto dagaalka dunida xilligaasi ay gali lahayd oo noqon lahaa mid kaliya la isku adeegsado hubka nuclear-ka